saakay waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo wadanka yimid muwaadinkaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid in ay yahay positive muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin waa alxamdulillah ilaahay waxaan ka rajeynaa inuusan ku soo bixin marka muwaadinka dibadda ka yimid waa dadka la haayo oo karantiilka ku jira waxaan rajeynaynaa inuusan cudurka ku soo bixin waxaa lahayn doonaa intii analysis kale oo 2 iyo 3 laga xaqiijinayo waa caafimaad qaba wax calaamado ah kama muuqdaan xaalado badan oo saas ah jira oo san ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka waxaan ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka ku soo bixinin waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iideysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo saala socotaan wadankeena xaaladda caafimaad waa iska liidata waa wadan soo koraya dhibaato badan ay haysata waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno sidaad la socotaan diyaaradihii waa la celiyay inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo oo safaradii isu socodkii waa la hakiyay waxaa kaloo la hakiyay goobihii shaqada oo 2 satimaan ayaa la fasaxay waxaa kaloo la hakiyay oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha muwaadin kastoo ka yimaada meelaha qatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa waa la karantiilayaa ilaa 14 beri ayaa la haynayaa waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudurka uu qabana aan lagu deynin bulshada oo intii ka badnay uusan cudurkii qaadsiinin waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan ay nala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado ha ahaadaan iskuulaad ha ahaadaan jaamacado ha ahaadaan xaflado totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan 15 qofood in la kala dheeraado oo ma aragtay aan gacmaha la iska salaamin in aanan lees hagareynin oo aan lees haanyoonin cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay wasaaradda waa qaybisay raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa wacyigelinta waxaan wada awoodno inaan sameeyno qof walbo annaga naga mid ah uu sameyn karo waa idin baryaynaa waxaan idin ka baryaynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo safarna la aadin meelaha waaweyn la isugu imaanin ardada guryaha lagu haayo haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyay uu guriga joogo laakiin banaanka markuu u baxo ilmo kale badan uu la ciyaarayo wax weyn ma aanan sameynin still wali waxa waa ilmihii contact leeyina waa kulmaya calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira 10 line oo magaaladan laga fuliyay goboladana laga wada fuliyay qaarkood gobol kastana laga fulin doono waxay soo wacan karaan nambaradaas waxaa loo sheegi karaa waxa uu sameeyaa qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo telefoonka la hago qofkii xanuunka loo tago la fiiriyo haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba waa ku celinaya mar walba Soomaaliyeey walaalayaal waxaan idin leenahay hal la yareeyo salaanta meelaha cariiriga ayaan la isugu tagin gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurkii qaba meeshuu taabtay gacmaha ugu yaraan 20 second in saabuun iyo wixii looga hortagay jeermiska lagu dilo in lagu dhaqdo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado qofkii kale oo bulshada kalena uusan u gudbin cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogto waa wax waajibna wada saaran culimo civil society takhaatiir qof allaala qof kasto Soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo uu ka hortago cudurka in la kala dheeraado inaan la salaamin in nadaafada lagu dadaalo gacmaha aad loo dhaqo qofka nadaafada jirka iyo nadaafada guriga iyo meelaha wasakhda biyaha uu iska hagaajiyo in guriga la joogo waxyaalaha aad loogu xakameyn karo
waxaad arkaysaan wadamo waaweyn oo naga dhaqaalo badan oo naga qalab badan oo caafimaadkooda naga horumarsan yahay in meydadkooda maalin walba qaarkood 700 ilaa 800 ay dhimanayaan waxa ugu horeeya waxa waaye waxay dadka iska indhatireen calaamadihii iyo sida lagu xakameyn karo oo ay ka kow tahay inaan la isdhexgelin in la kala dhowrsanaado ayaysan dadkaas aysan raacin fadlan hal la raaca wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la sameeyay taqaatiirta ururka taqaatiirta Soomaaliyeed oo si dhow ula shaqeyso culumaa u diinka in la yareeyo bixitaanka aan la bixin hadaysan muhiim ahayn laakiin loo baxa kaliya waqti yar oo qofka soo adeeganayo in goobaha la isugu tagayo la joojiyo in ardada guriga lagu haayo oo la kala dhowrsanaado waa mahadsantiin waxaan rajaynayaa ilaahay cudurka inuu naga qabto labada qof oo laga helayna ay ka yacni uusan ku soo bixin oo ka badbaadaan